curinta ugu wanaagsan ee bini aadamku sameeyeen waa dowlad teknolojiga adduunka waxaan oo dhan waxa ka khatarsan oo dowladda maxaa yeelay dowladdu bulshada nidaamisa dowladdana bulshada ayaa ilaashata dadka bisili ma ogolaanayaan dowladdu inay dhacdo waxay ogol yihiin qofka inuu dowladda ka tago waxaan odhanaynaa hebel waan ka daalay haska socdo laakiin hebel dowladdii ma qaadanayo dadkuna markay hebel eryayaan dowladda ma raacinayaan sida Soomaalidu samaysay maxamed siyaad barre raxmo iyo dowladdu waa la israaciyeen maxaa la isku raaciyay caqli darro ahayd lama bisleen marka problemkaas baa yaa jira oo ah inaan caqligeenna galino fikrad la dhacdo mafaahiim iyo baqas waxa inaan dowladda soo ansaxno saddexda kala jeer waa inaan beddelno marka maxaan ku beddelnaa marka dowladdu waa maxay ay dowlad ana su'aasha ka jawaabno iyo ka jawaabay su'aashaas jawaabta su'aasha yaa bixinaya ma hiya dowlad ani waxay la tahay waxa bixinaya had iyo jeer waxaan ku cishaa azmatu Soomaaliyiin azmatu nukhba ilit baanijin ilit labeen dadka Soomaalida waxa isku eg labeentii bulshadii caadiga ahayd maanta markii Yurub ay sameysanaysay dowladda maanta la yaqaano waxa soo baxay labeen ninka loo jeeday John Jack Russo ayaa soo baxay ninkaas raga lamid ah waxay qoreen kitaabkii al-aqd al-ijtimaa'i social contract social kitaabkan ninkaas muxuu ku qoray dowladeen maxaa tahay sida u samaysantaa ayaa ku sameeya dowladda wanaagsan iyo dowladda xun maxaa u dhaxeeya shicib fiican iyo shicib wanaagsan maxaa u dhaxeeya muwaadin wanaagsan muwaadin waxaasuu falsafadahan macneeyay tii baa la daadiciyey oo dowlad laga sameeyey marka annaka maanta dowrka ninka elitku ee nukhbada ah waa maqaye hadduu fikirayana wuxuu u fikirayaa sida bulshada u fikirayso wuxuu ku dhex fikirayaa waxaan u bixiyey saddexda qafas soo qafas ma naqaano Soomaaliga qafasku waa waxaan shimbirka guriga lagu xidho annaka dan saddex qafas baan ku dhex jirnaa kama bixi karno mushkilad baan haysataa waa marka hore qafas qabiil baan ku dhex jirnaa aqooyahankii qafaskaaba ku dhex jiraa wadaadkii qafaskaas ku dhex jiraa siyaasigii qafaskaaba ku dhex jiraa marka uu rabo inuu dowlad ka fikiro wuxuu ka fikirayaa qabiilkiisu dowladda muxuu ka helayaa waxa islahayn qabiilku dowladdu hoos fadhiyaaye qabiilku dowladda ma sameeyo taasoo mushkilada labaad qafas waxaa jira kale oo lagu jiro oo ah qafas gobol iyo qof ku dhex jira ama qafas xarako amba dacwadeed amba maaragtay oo diineed waa qafas kale oo si looga baxo ayna jirin qafaska saddexaad oo ugu qatarsan waa qafaska danta qofku ma fikiri kara isagoo dantiisii halkan iska soo dhigin ninka aqoon-yahanka ah u xidhmaa xaqiiqada u dhintaa u gaajoodaa u haraadaa maanta inaan ummaddeena barno maxay tahay dowladii waa shaqada ugu weyn ee eliidka sugaysa waxa ugu culus ee sugaya dowladda inaan dadka la baray waa dowladnimo dowladda suuban maaha dowladda suuban waa marxalad labaad weeyaan horta dowladay maxaa tahay dowladda wanaagsan maaha dowladda dimuqraadiga ah maaha dowladda waxaas ma dowladnimo maxaa tahay taas waa inaan marka eliidka qolada labaad ee sameyn kara markaan eega raadka ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed waa culimada weeyaan culimadu sida u dul fadhiisteen baabu tahaara baabu dawlaha u dul fadhiistaan baabu tahaara waan dhameyn خلاص baabu الحيض baabu النفاس kitaabu maartay zawaaj dumarka iyo ragga maxaa u dhaxeeyo xuquuqul waalideyn mi'aad sinin ma ka hadlayna Soomaali maxaa ka maqan dawlad baa ka maqan Soomaali kama maqno guur way iskuursitaa Soomaalidu ma garan laa loo tahaara qaato ilmaha yar baa guriga ku barta laakiin fiqiga Soomaali ka maqan waa fiqh siyaasa waa fiqh shariica waa fiqh dawladeen maxaa tahay dawladul xadiitha islaamku muu aqbalaya mise ma aqbalayo kitaabka sunnah ku jirta laga soo saaro waa doorka culimada kaas qolada saddexaad waxay waa hal abuurka weeyaan hal abuurku gaar ahaan fanaaniintu waxay ku tilmaami karaan dowladnimada saxda ah hees iyo gabay iyo buraanbur iyo wixii la halmaala Soomaaliduna waxa way dhageystaan saddexda qol haday isku tirsadaan oo nuqbadii waxa ku jira aqooyahankii cilmiga sharciga aan yaqaanay iyo siyaasigii labadaas iyo baya mushtarkiiba waa nuqba xasan kuwaas baa sameyn kara saayila tahay dowladnimada